ku turjuma waana offline soo taabanaysa dog dog soo cunuga maanta uu iska ciishana dog dog a bisad bisad cat cat soo kan waa ri goat ri bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Nuur Cali Mahdi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxaan ahay telecommunication engineer and education technologist baahida ka jirta gobolka Waqooyi Bari xagga delivery tacliinta ayaa u kaliftay inaan ka soo taga career oo telecommunication engineering and u soo galay education maxaad arkaysaa markaad maartay dhaxmarta gobolka Waqooyi Bari cunug ama qof wax maartay dhalinyaro oo form 4 ama class 8 oo waxbana qori karin waxbana aan akhrin karin marka hadda iskuulada la xiray ku imaadaan gobolada maxay ka imaadaan gobolada ay ku imaadaan maxay la imaanay grade hoose badina marka dhadaniyo aan bal luqadooyinka aan maartay ingiriiska ama Soomaaliga aan ku sheekaysan runtii aad ay u dhibtaa saa ogtahayna maxaa weeye luqadda ku dhibayso imtixaanka ma baasi kartid waayo luqaddi maxay ku saleysan tahay imtixaanka wuxuu ku saleysan yahay luqaddi marka xoolo dhaqato leeyahayna waa Soomaali iyo kuwan Soomaalida ahayn badi maxaa la soo wajaho tacliin xumo natiijada marka maartay soo baxda wadanka maartay rating lagu soo biyo aad ba u hooseeyaan maxaad arkaysaa school idil oo keenay course u galay education technology oo master u soo diyaari sifa aan xal ugu keeno bal tacliin xumida ka jirta gobolka Waqooyi Bari soo markaan fiiriyay maxaa arkay dhibaatada meel ka socota maxay luqad xumida waayo maxaad arkaysaa fasalka ay imaatay af Soomaaliya garanaysaa waliga luqad kale kuma hadleen laakiin fasalka marka ay imaato buugaagtii maxay ku qoran yihiin Soomaali Ingiriis macallinka waa ajnabi balka hada wax baro aniga kula hadlaa ilaa fasalkii 7 waan iska socday 7 sano iska socday waxba aan baranaynay waayo luqadihii baan madaxa isku la jirnaa luqadda garanayna which means waxba ma geerin kartid sida daraadad ayaan u keenay application aan u keenay caruurta yaro maartay ECD galda waa pre-primary 1 iyo 2 waa level go hoose education-ka in ay ku bartaan afkooda hooyo sida daraadad maxaan u keenay application la M Luga waxay u fududeynaysaa ciyaalka yara inuu luqadiisa hooyo ku barto so buugaagtii ama syllabuskii ayaan qaadnay maxaan u bedelnay mobile applications oo interactive oo offline akhadna u baahneen sifo ma aragtay caruurtii hadduu leeyahay kan waa aabahay uu af Ingiriis u dhaha uu ugu turjumaya luqadii uu garanay horaan maxaa ugu talagalay Soomaalida ugu talagalay especially Northeastern-ka gobolka Waqooyi Bari laakiin markii dambe maxaan arkay baahidii inayba ay aad u weyn tahay waxaan kala ku darnay ilaa 19 kale oo luqadooyin oo lagu hadlo wadanka Kenya hadda tagto Rwanda Faransiis waay hadda tagto Djibouti Faransiis waay hadda tagto West Africa maxay ku hadlayaan French iyo maxay ku hadlayaan iyo Portuguese qaar ku hadlay soo marka fiiriso Africa ay dibkan kulli haystaa cunugii markuu fasalka imaada luqadii hooyo oo u yaqaan maxaa la ku hadlin luqad kale madax laga gelin Europe wadanka ugu jir ay afkiisa hooyo isticmaalaa application-ka markuu bilaabanayo wuxuu ku bilaabanaa waan tusi doona insha Allah wuxuu ku bilaaban doona culture dhaqanku ku bilaabanayo soo sawirada dhaqanka markaad dhax mushaaxdo kadib content-ka ayaa u galaysa aqal hooriga aqalkan daasaxani kulli waxa ka sheekaysa mala iyo alaabtii maartay alaab dhaqameedkii waa kuwan geeli rarna aloolki hada ku saxan adana waxa ka sheekaysa mala iyo caruurtii loo xadiganay so application-ka angal application-ka marka gasho maxaa ku jiro waxyaalihii syllabuska oo manhajka ku jiro so inta waxa ku jira heesii alphabetska ku jiro balkan aan tagna waa listening skills si wax maqalka so maxaa arkaysaa body parts family home blah blah animals so waa category aan u yeelnay so let's say domestic animals aan fiirina domestic animals waxa ku jira dog so ku turjuma waana offline soo taabanaysa dog so cunuga maanta uu iska ciishana dog a bisad bisad cat so kan waa ri goat ri horse faras cow sa camel geel rabbit bakayla so kaas maxaa kaloo sii tagaysa waxa wali waa all of them nouns way marka tagta fruits and vegetables waa kon mango amba avocado moose ka bax waxa kulli nouns ay tagaysa ukumihi iyo transport and then let's go to listening skills waa kan I am a boy wiil ayaan ahay I
am a girl. Gabar ayaan ahay. ka bax reading skills days of the week aad tegaysaa oo u fasira carruurta Isniin, Talaada, Arbaca, Wednesday, Tuesday, Monday. and then assessment uu qabaa cunuga waxaan fararnaa inuu ogaado inuu macnaha uu wixii u barta aan fiirin Letter A. so maxaa le taabo xaraf Xarafka A. markaa taabato hadhowna maksu siinayo so tan maxaa waaye one of the subject tan hadda waxaa waaye language activity waxaa jira mathematical activity maxaa kaloo jira animations aa jira animations let me check animations environment activity tan waa environment activity carruurta maxaa la siinaya animation fiican Hello, my name is af Ahmed. Soomaaliga I am a boy. af Soomaaliga u bedelaya Hello, magacaygu waa Axmed waxaan ahay wiil. Hello, my name is Mariam. I am a girl. Hello, magacaygu waa Maryan waxaan ahay gabar. Nose, I use it for so smelling. wuxuu galaya body Waa parts sankeyga waxaa u sankeyga isticmaalaa inaan wax ku uriyo. This is my mouth. I use it for eating and talking. Kan waa afkeyga waxaan u isticmaalaa inaan ku cuno oona ku hadlo. This is my knee. Kan waa jil. haddeen haddana maxaa aadaysaa Kan xaafadda waa aabahay. Kan waa aabahay, Magaciisa kan waa waa hooyaday. Musa, waa darawal. This is my brother. af Soomaaliga la leeyahay af Soomaaliga waa ki His gaaris name is Ali. He is very old. After playing, Marka la ciyaaro. so animationka kaasaa ka mid and then haddana assessment uu qabaa like this one assessmentkan okay muxuu leeyahay let's start We use our nose to smell right. Waxaan u isticmaalnaa sankeena uris qoraal. so one of the assessment waaye waa very long assessment kan asana waa assessment waaye restart Of the two images shown, identify the nose. Labada sawir ee lagu tusay keebaa ah san. Maintenant, avec Orange Bank, on change son code de carte quand on veut. Tu veux mes yeux? Keebaa ah san. so waa one of the assessment ka gudub taa waa one of the maadooyinka ka mid tahay environment activity and then xisaabtan wax yar ka taawana mathematics Somali xisaabta waatan carruurta waxay baraysaa kow ilaa 10 Labo. 2. and then our money tama lacagta laga isticmaalo wadanka way u sheegaysaa intuu yahay 200 shilin. 500 shilin. and then you go to animation kan daily routine before going to muxuu baraya xisaabta la isku daraya 2 oranges plus 3 oranges equals to 5 oranges. Laba liin marka lagu daro 3 liin waxaa helaysaa 5 liin. ku dar iyo ka jar iyo 3 books. iyo xisaabta oo dhan ba so contentkan aad u weyn yahay waa intaasoo maaduu qaba kalaaska lagu isticmaalay syllabuska ma ogi maxaa kaloo ka caawin karaa inay carruurta maaragtay af Soomaaliga ku bartaan si maaragtay dhaqankana loo ilaaliyo afkana loo ilaaliyo appkaad waxaa laga heli karaa Play Store-ga iOS-ka waan soo wadnaa insha Allah like hadda Play Store-ga uu ku jiraa waana $10 yaa waaye waa annual subscription sanadkii $10 waaye haddaa haysatana Windows daa haysata ayadana waa soo dejisan kartaa adigoo isticmaalaysa BlueStacks especially laptop window haddaa haysata waa isticmaali kartaa